بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي دماتي بلشوينا الصوماليات ميلو بجوكتان. waxaan qaadanana maanta wax ku saabsan isaguna suuqa shaqada waa kontaraagyada ama kontaraaga u kala dhexeeya ninka shaqalaadiska iyo saaxiibul camalka. waxaan soo qaadanana noocyada foomamka shaqada on sterling formal leeyahay. marka way badan yihiin. waxaa jira proven sterling, team sterling, vicaria, project sterling, yon sterling, tilsfeeder sterling. iyo laas wax macnaheedu tahay. marka bilaabno waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah noocyada xuquuqda qofku leeyahay waxyaalo badan oo ku saabsan si qofku uu ogaado dadka Sweden ku cusub oo shaqaalaadka ama dadka dhawaan shaqo helay oo ku yara xayrmato waxyaalaha ku saabsan foomamka shaqada ama foomka contract u kala dhexeeya ninka shaqaalaha iyo ninka saaxiibul camalka. waxaan ku bilaabnaa login on sterling khid las maxay tahay? las waxay login on sterling khid oo khidan sterling bit obsaining marka qofka shaqada laga cayrinayo kale ama shaqada laga eriyo kale. login yeller from sterling bit fast and sterling badana logaas wuxuu ilaaliya dadka maaragtay haysta fast and sterling waxay til speed and sterling shaqad joogta haysana aan ku tiraagoodu dhammaan. I lagen står det att en person inte kan sägas upp från sitt arbete utan خالق grund. laga meeri karo qofka shaqada ilaa uu lahaado wax jira nacamti sabab loogu cayrinayo ama loogu eriyo shaqada. خالق grund kan vara att det inte finns arbete. مثلا kale waxa خالق grund wuxuu noqon karaa sabab oo kale wax noqon karta haddaan shaqo jirin oo kale مثلا kale eller att anställning inte sköter sig på arbetet. ninka shaqadiisa saan uguma soo baxo masaan uma shaqeeyo. I lagen om anställning finns det regler om vilka anställda som ska sägas upp först när det är brist på arbeten. wuxuu sheegayaa logani nacamti macnahaan goorta la doonayo qofkan shaqada laga cayriyo hadduu shaqo aanay jirin matalan oo kale ninbaa shaqa shirkadda haysa markaa kunkush buu galay ama shaqadii baa ku yaraatay ama adigu xagga ekonomigiisaba ninkii saaxiib camalku markaa wuxuu doonaya dadka shaqaalan inuu kala yareeyo kale. muxuu sameynaya markaa ninka saaxiib camalka oo kale qaanuun baa jira maahan qof walba iska cayriyo. dadka las tour ordnings regular hubud regular ar oo ugu horeeya waxa weeyaan adet samvartan stelda kurchustid ninka shaqaalaha ee muddo gaaban shaqeeyay kaasa laga hor cayrinaya ama laga shaqada laga fariisinaya ka kale muddo dheer shaqeyn jiray kaasi uu haraya marka waa la kala shaandheynaya. qofkii muddo gaaban shaqeeyay baa marka shaqaale la'aantu dhacdo shirkadda ku dhacdo oo la doonayo la cayriyo ama la fariisiyo dad badan waxa la fariisinayo kow wax loogu sii horeysiinayo dadkii shaqada soo galay dhawaan ama muddo gaaban ka shaqeeyay meesha kuwii kalena dib baa loo dhigayo dadka muddo dheer ka shaqeeyay dee. collective aftal wuxuu kala dhexeeyaa kontraagani arbetsgivara saaxiib alcamal shirkadda ninka leh shaqada leh iyo u kala dhexeeya fagforening waxyaan ururada ururada shaqaalaha xuquuqdooda ilaalisa. collective aftal finns regular om till exempel waxaa ku jira waxyaalo badan arbetstidka qofku shaqada muddada uu shaqeynayo 8 saacadood wax ka badan qofku ma shaqeeyo. Sweden hadduu shaqeeyana waa overtid waa overtime waa shaqo dheeraada. semesterka oo isaguna muddo cayman leh maalmo nacamti qofku semesterkiisa markuu sanadka dhan fasaxiisu intuu noqonayo loonka oo lacagta qofku waxa jira saqfi baa jira oo aanan hoos looga dhaadhicin karin oo lacagta nacamti qofka la siinayo shaqaalaha xagga Sweden markuu qofku shaqeynayo. det ofta ett collective avtal som styr din lön kaasaan nacamti u kala dhexeeya. muddo dhaweyd waxaa jiray wada hal ka dhexeeyay ururada shaqaalaha iyo shaqo bixiyaasha dadka shirkadaha leh oo waxyaalahaasi ka hadlayeen badanaa ka doodayeen
goorma qofka la cayriyaa waxyaalo badan oo saas oo kale markaa muddo bas sanadaba way isla kulmaan way ka wada hadlaan collective aftal in Holland after regular on and still form noocyada shaqa macnaha title qofku qaadanay markuu meesha ka shaqeynayo macnaha waxa weeyaan contractigiisu muxuu yahay ma team ba install bise waa soo waxaan proof installing bise waa project installing saas oo kale loan ershitting oo ku saabsan lacagta iyo xuquuqda kale ama waxyaalaha bedelka lagu siinayo leedgeedka fasaxa overtime-ka marka qofku waqti dheer shaqeeyo arbeistiderka shaqada laftooda obsaining goorta qofka laga cayrinayo sababta looga cayrinayo waxyaalo baa jira qofku garanaysa badanaa qofkuna markuu shaqo galo waa inuu fac foreign bay shaqo walba mihnad walba leedahay marka fac foreign-ka qofku inuu u bixiyo midleem oo ishtiraak bixinaya qofku oo ururadaas uu dhexgelaya waayo xuquuqdiisa ilaalin doonaan markay dhibaato ku dhacdo xaggii shaqada ama xaq darra xagga saaxiib camalka bikhunar og olika fals for shinging markuu qofku bikhunar galo dad weyn noqdo iyo markuu dhibaato accident ama nabaro xagga shaqada kaaga timaado ama kugu dhacdo shaqada ku jira advaran still haddaan noqotid nin shaqo la siiyey maanta oo kale naardu har installing aad dadbigtid aad teenka bo waa inaad ka fikirtid wiilkan ratigeed oo wiilkan khildigeed waad ina garatid maxaa xuquuq leedahay maxaa waajibaad lagu leeyahay do har for holland til arbeids given lahay in kala dhaxeeya adiga iyo saaxiib shaqada ku siiyay saaxiib camalka nacamti shirkadda leh har kan du läsa om sådant som är viktigt att känna till när du vill anställa form oo kale مثلا kulma ka soo qaadanaa مثلا noocyada kontragyada waa maxay laba nooc oo kontrag baa jira labada nooc waxa weeyaan tilsfeeder installing macnaha waxa weeyaan qofkani kontragiisu waa kontrag from weeyaan oo waa fast installing bal oo macnuhu oo shaqada joogtaa weeyaan mar walba laguma kontrag ma ka dhamaaday ama kontrag ma ka dhacaya arrintaas waa arrin furan weeyaan teeth begins and installing kontragan muddo ugu cayimanahay marka teeth begins and installing baa u kala baxa noocyo kala duwan oo kala baxa waxaan example about teeth begins sida oo installing this only ka sorta teeth begins sida and installing element fist installing baa jira kow oo kaas wuxuu macnaha yahay element fist installing wuxuu yahay infist period oo waqti baa jira aad ka lacantii waqti baa bilaabay shaqada sanadka mid ku aado bisha koowaad badan qale ilaa sanad laba sano kadib ama sanadka labaad dhamaadkiisa kontragaagu wuxuu ku dhamaanaysaa sanad ama laba sano waqti baa jira xadidan kontragaagu wuxuu leeyahay muddo xadidan waxa jira wax kale loo bixiyo saasoo kale project installing hadana kale shirkadu waxay doonaysaa inay samayso wax gaar ah laakiin muddo sanaday wax ku sameynaysaa laba sanadood kadib shaqada shirkadaas way dhamaanaysaa projectka ay qaadatay mid oo kale marka kontragaaga waxa loo bixinayaa project installing macnaha waxay inta muddadu shaqada inta shirkadaasi hayso mashruuca dukaan for in element installing nar arbeids giverner ringer day waxa jira wax kale oo bixiyo team installing waxay marka arbeids giverner kula soo qaraaco kulaaho shaqada soo gal saacada baa shaqeynaysaa maanta britana saacada kale saacada dambena saacada kale taga dambeysana saacada kale saasoo kale loo bixiyaa team installing waxa qaadanana vicariat magaca vicariat aad baa u maqalnay oo talabaad weeyaan vicariat waxa weeyaan macnaha qofku markuu qof kale shaqaalaha meeshiisa ka shaqeeyo shaqaalahaas waxa ku dhacay doono aabahu fasax aabahu baxay waalidnimo ama waxaan u sanayaa qofkii shaqaaluhu kadib qofkii baa meeshiisa adigu galaysaa oo u shaqeynaysaa vicaria marka hadda ilaa intuu soo noqonayo baad u shaqeynaysaa waxa jira ka saddexaad waa proven installing waxa weeye macnaha tijaabis weeyaan lagu tijaabinayo taasna wuxuu ku saabsan tilsfeeder installing intaan lagu soo tilsfeeder installing ninka saaxiib shirkadu markuu soo dalbado oo laaho shaqadan gal proof installing 6 bilood weeyaan wax ka badan 6 bilood maaha uu ku eegayaa nin qalma shaqada ma tahay kadib way isbedelaysaa proof installing wuxuu baxaa kadibna adana tilsfeeder installing macnaha wuxuu isku bedelay marka muddo haato
laba sano muddo 5 sannadood 2 sannadood shaqeeyay kadib isbedelay waa qofku inuu contract u cusboonaysiiyo oo ka dhigo wax loo bixiyo tilsviiden sterling وسوق سوقا دad gäller om du under en tidsperiod på 5 år 5 sannadood sammanlagt arbetat hos arbetsgivarna i mer än 2 år يعني 5 sannadood intii ku dhaxaysa 2 sannadood wax ka badan marka shaqaysid direct wuu isbedelayaa wuxuu garayaa den sterling overgo då till Sweden en sterling detta kallas att bli inlasad och LS qaanuunka ilaalinaya dadka maaragtay sterling khid weeye kaas waxa soo qaadanta ugu dambaysa waa afraad weeyaan soo song arbeta waxa weeyaan tan waxa tourism waxa shaqada muddo leh sanadkiina intii loo baahdo shaqada waxa tourism midna kale dadka dalxiisayaasha markay maada dadka la shaqeeyay ee tusa magaalada oo tusaya midna kale meelaha la tagay meelaha la seexanayo meelaha saasa hudheeladii meelii lagu dalxiisayo shaqada kale waxa weeyaan schools brook shaqada badan oo kale marka loo baahdo geedaha iyo waxa duurka marka la gelayo geedaha la jajarayo kale waa shaqo cayiman ma sanadku dhamaaha laakiin muddo bay jirtaa youth brook kale waxa jira beeritaanka oo kale sanadka marka beertii la soo la beerayo bay noqonaysaa snow scotning waxyaan markuu barf oo kale midna kale sanadkii dee 3 bilood weeyaan oo qofku midna kale mashiinada waaweyn ka shaqeeyo oo laamigii ka xaarayo barafkii oo ka hagaajinayo trade course odling taasna waxyaan beerun bay ku saabsantay ama baaxada yar dibadda ee maaragtay magaalada dhexdeeda iyo samarkay ahaanaysa badanaa boor ama samarka waxyaan kuleelahoo kale bay shaqadaasi aad intaas u ahaanay casharka maanta waa in soo yargaabiye waxaa ku saabsan tahay badanaa waxyaalaha ku saabsan suuqa shaqada weeyaan kontraagyadu waxay yihiin u kala baxaan marka waa soo qaadanay kontraagyadu afar way kontraagyadu laba u baxaan mid waxay tilsvider sterling waxay fasten sterling talabaadna waxa weeyaan tis begrens sterling oo waqti xadidan leh marka kaasa u kala baxa afartiina waa soo sheegnay وأدي أدمان سلامي وأنا يرشي جامعة وأنا إن شاء الله كان هو بارتكي كوباد بارتكي لبعض ما خدم بيت وأنا كسب صح كنتراجع محل وقرا محل قرني هاي يو حيالها كلا كسب صن لون كاجا كورت لون هي مثلا كلا أما فصح هو تيويا معلومات يو أدوقف حنوصادو يو حيالها سو كلا أدي أدمان سلام